dowladda federaalka ayaa digniin u dirtay beesha caalamka inay joojiso faragelinta ay ku hayso siyaasadda arrimaha gudaha ee dalka. Siyaaya xilka ra'iisul wasaaraha Mahdi Maxamed Guuleed ayaa kulan degdeg ah isugu yeeray golaha wasiirada dowladda federaalka. Kulanka waxaa looga hadlay arrimo ay ka mid tahay faragelinta beesha caalamka. Golaha wasiirada ayaa ka jawaabay baaqyadii adkaa ee beesha caalamka u dirtay baarlamaanka iyo dowladda federaalka, kuwaasoo looga soo horjeeday xilka qaadistii Khayre. golaha wasiirada ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay ilaaliyaan madaxbanaanida dalka. wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Maxamed Xayir Maareeye oo ka hadlaya warmutiyadkaas ayaa dhahay golaha wasiiradu runtii wuxuu bogaadiyay taageerada beesha caalamku had iyo jeer ay la garab taagan tahay dowladda Soomaaliyeed ee siyaasad leh, horumarin leh, dhaqaale leh, amni leh ayaa golahu aad iyo aad u bogaadiyay. haddana dhinaca kale waxay golaha wasiiradu ka codsadeen diplomatic missionska iyo dawladaha aanu saaxiibka nahay inay ixtiraamaan madax banaanida iyo dastuurka iyo go'aamada hay'adaha dastuuriga ah ee dawladda inay ixtiraamaan wixii tala ah ay hayaan u hayaan horumarinta iyo adkeynta nidaamka dawliga ah ee Soomaaliyeed inay u maraan channelka diblomaasiyadda ay u maraan. dhanka kale madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa soo dhaweeyay faragelinta beesha caalamka, wuxuuna beesha caalamka ka raali geliyay wax uu ugu yeeray khaladaad ay galayaan Soomaalida. waxaan uga mahad celinayaa beesha caalamka runtii muddadii dheereed ee dalka Soomaaliyeed garab taagnayd. waxaan ka raali gelinayaa khaladaadka dadka Soomaaliyeed ay mararka qaarkood galayaan oo keeni kara niyad jabka kuna abuuri kara dhaqaalihii faraha badnaa ee dalka ku bixinayeen in uu ku keeno niyad jab. waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka inay bedesho aragtideeda siyaasadeed. dadka Soomaaliyeed marxaladda uu marayo weli wuxuu ku jiraa geedi socod siyaasadeed, inay keligood isku dayin oo markay wax dhacaan aysan ka daba tegin. waxaan ka codsanaynaa in ay kaalin mugle ka qaadato sidii dalkan looga saari lahaa marxaladdan, aysan ku sii dayn madax Soomaaliyeed oo siyaabo kala duwan u yimaada mararka qaarkood in ay waxay doonaan sameeyaan. waxaan uga mahad celinayaa dowladda Mareykanka iyo EU-da qoraalladii ay soo saareen. waxaana ku boorinayaa dowladaha kale ee dalka taageera inay mawaaqif cadcad ka yeeshaan dalkan hantidii gashay oo caalamka ee ka gashay inaysan khasaarin. hadalka Dani ayaa u muuqda inuu leeyahay beesha caalamku hana soo farageliso, halka dowladda federaalku ay leedahay faragelin dooni mayno. daawadayaal maxay idin tahay? ma isleedahay xal ayay keeni karaan beesha caalamku haddii arrimaha siyaasadda dalka ku dhex milanto? fikirkaadana la wadaag, share dheh muuqaalkan si asxaabta inteeda kale uga falceliso. subscribe sar haddii aad channelka ku cusub tahay. mahadsanid.